haddaba su-aasha isweydiinta loo xaweyn si aad ku ogaan karta inuu ku diidan yahay keliyata halkaa waxaad tagtaa isha yar uu kuusoo furaya marka waxaad akhridaa halkan uu kuusoo qoray marka ugu horeysa waxaad halkan kusoo xidhiidhitaan time wax lambaraan oo keliyata inaad gelisid ama waqtiga ama time ah labadaa mid taariikh ama time labadaa mid inaad gelisid unbuu u baahan yahay inaguna waxaynu ku dayaynaa inaynu gelino tagas inaynu gelin wuu naga diidaya midda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad kusoo dhawaataan cashar cusub oo ku saabsan ama aynu ka bixin doono maanta barnaamijka loo yaqaano Microsoft Access sidaan barnaamijyada horeba kusoo qaadan jirnay barnaamijkan intaan bilaabin horta hordhac iyo introduction ka bixinayna barnaamijkan waxaa loo adeegsadaa database in lagu diyaarsado database kooban in qofku diyaarsado ama laga soo ururiyo marka database-kaasi hala tacalluqo dadyo kala duwan ama alaab meel la dhigayo oo kale iyo waxyaalo fara badan oo kale ama ay ka mid yihiin talabaad haddii meherada ay sameynayso oo kale database-ku waa agab ama xarun amase waa qayb aad kombiyuutarka ku samaysanaysid oo ku kaydinaysa xog aad u baahnayd inaad buugaag iyo waraaqyo waxyaalaha caynkaas aad ku qortid marka xogtii aad ku kaydin lahayd waraaqahaaga ayaad kombiyuutarka ku kaydsanaysaa barnaamijkan ayaynu adeegsan doonaa haddii alla yiraahdo markaasaynu hore u sheegnayba database-ka waxaa lagu kaydsan karaa tusaalahaan haddii iskuul oo kale aynu eegno magacyada ardayda ama barefad magacyada ardayda oo kale sidoo kale waxaa lagu kaydin karaa macallimiinta diiwaan gashan shaqaalaha dugsigaas oo dhan haddii meherad oo kale ay tahay borodogal iyo waxyaalaha ay iibinayso oo kale meheradaasi dalabaadka dadka uga imanaya waxyaalahaas oo dhan lagu kaydin karaa marka ugu horeyntii aynu soo kicinay barnaamijka guud ahaan markaanu eegno barnaamijku qaabkan ayuu noogu leeyahay noogu soo furmayaa weliba waxaanu joognaa qaybtii hore ee barnaamijka gudihu maynaan sii keenin xaggan waxyaalaha aynu u dambeyn isticmaalin database-yada aynu sameynay oo dhan ayaa noogu soo baxay xaggan tan xaggan orano sidoo kale xaggan markaa waqtigii aad samaysan xaggan kaga soo baxaya waa databases markaad samaysanaysid blank desktop database waad ku dhufanaysaa database-kaaga magaciisa waxaad ku qori doontaa halkaasaad ku qori doontaa waxaynu u bixinaynaa tusaalahaan cilmi bahshaan u bixinaynaa meeshaad doonaysa inaad dhigatidna haddii aad u baahan tahay halkaa ku dhufo shaayar ku dhufo markay saa noogu soo baxay barnaamijku waxaynu taaban doonaa halka loo yaqaano create kabacdi table design baan ka dooranayna halka waxaan gelinaynaa tablada inooga koobnaan doona haddii alla yiraahdo marka ugu horeysa waxaan u baahanahay number uu shaygaasi yeesho kabacdi numberka maxaynu ka dhigaynaa waa in numberka qofka shaygaasi qaatay ama se ay ciddaasi qaadat yani cid kale la qaadan marka waa in uu noqdaa mid cid keliya taa iska leedahay isaga marka waxaanu siinaynaa auto number descriptionka waad iska dayn kartaa isaga magacii baynu ku xigsiinaynaa database-kan waxaynu ugu talagalnay college baan ugu talagalnay guud ahaan database-kan waxaynu ugu talagelaynaa markaa college gaaban oo maxaan ku dhahday ama kulliyad kooban inaan u sameyno aynu isku dayna short tags waxa weeyaan qoraal yar oo kooban oon aad u sii badnayn yarayna oo qoraal kooban buu noqonayaa xagga kale waxaan gelinaynaa fee lacagtii uu ardayga bixinayay marka xagga waxaan gelinaynaa currency ma haddii lacaga oo kale aynu gelinaynaa waxaynu ku xigsiinaynaa time ka dhigaynaa waqtiga oo dhigto ama shiftiga time buu noqonayaa marka lacagta ardaygaasi tusaale ahaan muu bixiyey mise muu bixin paid yes or no iyaduna noqonaysaa dhinacaasi markaan dhameyno waxaanu taabanaynaa close button oo midka halkaa inoogu yaala calaamada yar xagga ku taala wuxuu ku leeyahay ma save gareeyaa haabadeed hay save garee marka tablekan magac baad u bixisanaysaa hadhow toole ku aqoonsato ama aad ku garatid waxaad oranaysaa tusaale ahaan magaca ardaydeenu bixinay okay baan leenahay xagaas iyada yes ha oran laakiin noode saas ayaa kugu samaysmaya iminka halkan waxay nooga soo baxay tabiladii aanu samaysanay oo dhan dhammaantood double click haddaan ku dhufanana uu soo baxaya ugu horeyntii ardayga ugu horeysa haddaan lambarkiisa siino ogaanu orano maadada u dhigto
redan time calendarkeed baad ka xisaabin kartaa taariikhda xilliga taabadka gelinaysa shiftiga uu dhigtaa isaguna waxau noqonayaa migeni hore mise ka dambe tusaale ahaan waxau dhigtaa laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 11 aroornimo lacagta muu bixiyay ardaygaasi mise muu bixin oo kale xagana noqonaysa iminka halkaas way qaldan tahay shiftiga waxay noqon lahayd gelinka hore oo kale inaan ku qorno ama se aan ku qorno saacada uu ardaygu dhiganayo laakiin casharkan ku xiga ama casharaanta soo socday ku saabsan barnaamijkan Axis-ka aynu ku sixi doonaa haddii la raado inuu ugu jirta midda qaldan sida loo saxayo barnaamijka huruudaas ay noo saaran tahay qaab dambaysan haddii ardaygu lacagta bixiyay iyo haddii kale paid ayaad ku qoraysaa sida saxda ahayd waxay idinaha ku qorno gelinka hore ama se gelinka dambe oo kale laakiin si noo suurtageli mayso waxaanu ku dhigan doonaa habka table markaad soo samaysanaysay waxaad ku soo xidhay oo kaliya kugu shaqaynaya iminka waxaan halkaa ku soo xidhanay name-ka short text waxaan ahayn ma gelin karno ama qoraal waxaan ahayn lama gelin karno iminka soorna lambar geliya iminka inkastoo kambaani naga yeelin laakiin hadda iminka soorno geliya lambar ma noqonayso waa uu naga diiday halkan lafteeda iminka waxaan kaga tegaynaa waan isleenahay qoraal haddaynu iminka kaa kale u gudubno uu naga diidaya ma noqonayso sababtoo ah halkan waxaynu leeyahay wixii saxda ahaa ee aad kusoo